بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إلهي سبحانه وتعالى مهدا ما أنت دسكله ودروستني تحنا هيد نوصل تحنيت بشهر رمضان وينودى دهني فضيلة الشيخ محمد شيخ عمر درير ما أنت أربعة سيدي مركز جدول كأنه وسؤاله برشدة سؤالها برشدة إن شاء الله تعالى ما أنت وحيوب بدن دونان سؤالها كسب سنة أحكام تجود ما دام أحكامتي بشهر رمضان شيخ وكل احتراء ودروستي ولي ووضع سؤالها بدن كرمضان ككيمان يعني يهين سؤال رنتي صون نقضي وإنتوا ضبضان شيخ وآد وقت شوابي رمضان كني رمضان كي كهريبة سؤالها بشهر رمضان كسب سنة هدي عن كبل أبو عن هالمر إسرائيل فضيلة الشيخ سائل كانوا حولي هي قفك شقدي سبايو بدنت هاي سفر بشهر رمضان أي أسوق شو محوية لي مرخصدي أيو قادنا يا سؤال شلبادو حولي هي قفك الدين نقول لي هي دين تاسي صون كيسي موحمية ليسا سيدا مركا أحكامتا حجك يوحي لمده سائل كانوا حولي هي قبر هدي لك في صدا بشهر رمضان أو لحوجه يدا مركا وح كفارة أما لقوية لانيا سؤال شكو حكتا وحولي سائل كانوا حجرة ضد أنت بدن بشهر رمضان صومن أساها تأن تكنين كوا مركا حكم كسون كودو محون نقنيا سؤال شو قدام بيسحق صون كوحولي سائل كني صنبوركا عرضك أو كديجا iyo waxyaabaha la midka himajabinayaan soonkii sidoo kale nacdasha dadku inta badan marka ay saacayaan ay isnacdalaan soonkii iyaduna ma jabinaysa. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، قفكو مركا ومسافر يهي شقدي سبا سفر كوبدان تهي وهلي كراه رخصدي عنيد بشهر رمضان وعني إنه عنا يو قابنتي سلادها وقابن لها جمعين لها قف مسافر يوحي والهاي يسقون ولاية بركة. لكن حسيد اللي وحوي قور مسوق اللينيا طبعا قليل وكبيرية رخصدي ولا سي لكن ده قلها لقول لي لهاي وحو أفصحين واسكعوني كرا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ما المكلا سوق الليالي مركا هدي أودي بيرتهاي إنه صومه في عنسي أنقله وقبضان وسهى يستار رخصدي. سؤال شلبات دينك إيه صومك وحدي بماله قفك كل دين لقول ليه دينتا إيه ذات إلى صوم كمال كبحيا مجرو حجك صوم كوحة وفرقية حجك حولا لو دونية لقو بحيو صوم كي لكن حولا لقو بحيو لو ما دونية مركا وحسك خسيا مجرو صوم كإيه دينتا مركا سي مهم كاي وحوية دينتا هدي وقت جيد دافتو بلانتي وكبحو قياميو دوا عاصي صوم كي ساجري كي يراين كرتا دينا عاوي كسوق لي كرتا لكن guud ahaan wax dhib ah marka uu deynku waqtigiisii leeyahay qiyaama aanay ku jirin dib uu ku keenayaa ma jiro. qofka bani aadamka su'aasha saddexaad weeye al-iqtisaab wa sawm gabadh baa la kusaday iyadoo sooman talooma wax dhacay mise waa ka soo qaad labadaba way noqon kartaa. haddii ay dhacdaba qofka waa loo cudur daaraa wixii aan isaga ikhtiyaarkiisa ahayn. mawaanicda iyo cadaartana waxa istiraacsan qasabkii qofka la qasbay iyo shayga loo yaqaan ilowga jahliga iyo khata ama gefka waxyaabahaasi way istiraacsan yihiin soomkii waxba kama noqonayo kama jabayo ilaa an tadhara fiiha qariinatu al-ikhtiyar inay yada ka muuqato mooyaane astaan muujinaysa inay ka raali tahay xaaladaasi markaa waa gaar. soomka iyo taariku salaadka laba madhab baa jira culimada islaamka dhexdooda sida macruufka qolyaha qaarkood de waa gaal bay leeyihiin taariku salaadku daliilana way soo qaadanayaan dabcan sida madhabul xanaabil oo kale dee gaal soon iyo waxba kama ansaxayaa bay leeyihiin ilaa uu tukado islaamo madhabkaasi waa halkaa. madhabka labaadna waxa uu leeyahay waa muslim
caasiya marka arkaanu islaamka kanuu ka tegayna la kaalay baa la odhanayaa salaadii soomkiina waa laga aqbalayaa idan markaa isagoo kolka horeba sii silanaa waxba ka eri mayne waxaynu odhan doonaa kol haddaad sooman tahay allaha ka aqbale jamacana soo gal qofkii soomanaa oo dhiig ka yimid wax dhiba ma leh xataa hadduu ogaan isaga keeno oo kii tijaabada ahaa in laabka uu iska qaado ama istoobo madhabka loo badan yahay waxa weeye inaanu toobinkaas iyo dhiiggaa uu iska keenay jabinaynin cayda iyo soomka waa su-aasha shanaad ama lixaad cayda iyo soomka caydu hadday gaalnimo keenayso ilaah cay nebi cay diin cay wuu ka jabayaa soomka wixiise ka soo hadhay sida raajixa cinda aljumhuur ajriguunbay ka yaraynaysaa kamase jabinaysa soomka allaahuma ilaa madhabu daahiriya ayaa waxay idhaahdaan waa ka jebinaysaa nacdashaasina waayo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca طacaamahu wa sharaabah hadalka dembigaa qofka iska dayn waaya ilaahay cunadiisan iyo cabiddiisanuu iska daayey muraad kama lahaa sababta halkaa lagu sheegay inaanu soomkiisiiba ilaahay aqbalin culimmaduse waxay u badan yihiin inuu ajrigii ka naaqusayo ase aanu ka buraynin soomku wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat الsheikh su-aalaha ku xiga waa su-aalo ku saabsan xagga salaada saa-iilkani waxau leeyahy fadiilat الsheikh haddii aan salaaddii cishaayi ilaawo oo wakhtiga suxuurta unaan xasuusto inaanan tukanin ma tukan karaa wakhtigaas su-aasha ku xigta saa-iilkani waxa uu leeyahay salaada oo dhan waxaan ku tukadaa faatixada ama alxamdu lilaahi oo keliya salaadaasi markaa ma iga ansaxaysaa su-aasha ku xigta waxa uu leeyahay saa-iilkani haddii imaamku uu istaag ku tukan kari waayo dadkan la tukanaya iyagu maxay yeelayaan iyaguna miyay fadhiisanayaan mise way istaagayaan su-aasha ku xigta iyaduna xagga salaada la xidhiidha gabadh ayaa soo qortay waxa ay leedahay fadiilat الsheikh gabadhii masaajidka ma geli kartaa wakhtigii aanay daahirka ahayn iyadoo u socotay inay wax ku soo akhrisato ama ay wax ku soo barato bismi illaahi raxmaan raxiim qofku markuu salaada ilaawo waxaa xilka ahee saarani waxa weeye muu dembaabin kol hadduu ilaaway marka uu xusuustoon waa inuu tukado alla wuxuu uhi aqimi salaata lidikri salaaddii og xusuustayda markaad xusuusato la kaalayo og cishaa'iga wakhtigiisu sida culimmada islaamku ay u badan yihiin waxa weeye ilaa intaanay dilaacin salaada subax madaahibta qaar way jiraan ilaa habeen barhki iyo thuluthu leylkiiyo tilmaamaya laakiin saasay culimmadu badan yihiin marka intaan waagu dilaacin haddii aad tukato waad gaadhay wakhtigii waana lagugu cudurdaarayaa ilowaa waxaase jira acdaarta qaarkoodoo asbaabi la socoto oo cudurdaar si wuu u yahay ukasna sibuu u yahay haddaad gasho network busy ku ah ilowgaba oo adugu aada sabab u tahay ilowga oo dadaan diin xusuusnayn iyo wax malaahiyoo ku mashquulinaya iyo ciyaarihii kubadaha iyo waxaasaad dhex gashay oo sababku ugu noqonaya aada iska garanaysa ninka halkan galaa inaanu digri iyo diin xusuusanayn ilaan dadka qaarkoodna marka aad dhex gasho ilaahay iyo aakhiraad xusuusataa qaarkoodna marka aad dhex gasho inta yareed haysaad ilowdaa dembi baa halkaa kaaga soo baydhaya laakiin salaaddii addaabay noqonaysaa kol haddii aan waagii baryin salaada faatixada haddaad taqaano way fiicanta oo waajibkii shaygii la akhriyayay arkaantii qowliga ahayd inta qur-aanka iyada ayaa ku beegnayd markaa way ka ansaxaysaa intaasun si ha ku egaaninoo hankaagu yuu yaraanin hankaagu yuu soo koobnaaninoo faatixada un yuu ahaanini qur-aanka baro macaash baad ku helaysaa ajrigaagii baa ku badanaya sunnii nebigaad ku waafaqaysaa calayhi salaatu wasalaam kama liidatid ilmaha yare malcaamadda lagu daree mar walba waxu kordhayaane halkaasun yaynaan fadhiin salaada dhibkayna haystaa waxa weeye waan bilaabay way dhammaatay qof baa su-aalaha salaada marka laga weydiiyey asaasiga arkaantii shuruudii mubdilaadkii waxba ka garan maayo markaad weydiisana wuxuu ku odhanaya 40 sannadood baanu adeer salaasax ahayn 40 sannadood ayaanu salaasax ahayn dee waayo imika sixi maysida 40 kabood soo khaldaysee bal isdaba qabatee idan markaa salaadda waxay u baahan tahay barasho iyo cibaadooyinka oo dhami imaamku hadduu istaagi kari waayo oo salaaddii fadhiga uu ku tukado cudurdaar buu leeyahay
jamcuna isagoo taagan buu tukan doonaa. qofka marka uu salaada ku kari waayo sara jooga fadhigaa loo ogol yahay ilaa jiifku uu sii guuri karaa. markaa xadiidkaa sheegaya in marka uu imaamku fadhi ku tukado jamcana uu nebigu uhi fadhiista, waxaa ka dambeeyey kan sheegaya inuu nebiguna fadhiyay jamcuna taagnaa. markaa imaam fadhiyaa dadka wuu tukin karaa. gabadha xaa'idada ah iyo masjidka khilaaf waa ka jiraa, way geli kartaa iyo ma geli karo. nusuusta saxiixa ahi waxay ayidaysaa inaanay masjidka dhex fadhiisanin iyadoo caado leh. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran fadiilat shaykh. su-aalaha ku saabsan xagga zakada iyaguna dhowr su-aalooda. saa-iilkani waxa uu leeyahay fadiilat shaykh, qofka mushaharka qaata mushaharkiisaasina uu saka gaadh yahay, sidee loo sakaynayaa? su-aasha labaad, hantida maguurtada ah sida bakhaarada iyo waxyaabaha la midka ah kuwa iyaga sake ma lagu leeyahay? saa-iilka ku xigaa waxa uu leeyahay xoolaha agoonta haddii ay gaadhaan saka goys iyaga sidoo kale sake ma laga bixinayaa? saddexdaas su-aalood iyagu waxay ku saabsan yihiin zakada. su-aasha ku xigta saa-iilkani waxau leeyahay fadiilat sheikh, qof ayaan lacag ku lahaa dayn ah waanu isiin waayey, lacag kale oo aan anigu u hayay ayaan markaa lacagtiisii kala baxay oon kala hadhay, umanaan sheegin, markaa ma ii bannaan tahay ayuu leeyahay. su-aal kale ayaa waxau leeyahay saa-iilkani meherad ayaan haystaa, qof ayaa dhar ii dhiibtay muddo sanad iyo ka badana ayaanan alaabtii u hayay, dibna igumuu soo noqonin, ma ii bannaan tahay inaan isticmaalo dharkaas aan muddada dheer hayay? falyatafadal. bismi illaah. qofku haddii uu mushaharka uu qaadanaya maalan dhowr kun oo dollar weeye, horta waa masale khilaafiya. halkee ka bilaabmaysaa lacagta nisaabkeedu? lacagtan imika aynu hayno waa la ogyahay inaanay ahayn tii wakhtigii nebiga jirtay calayhi salaatu wasalaam, oo taasi dahab iyo waxay ahayd dahab iyo mid cadcadoo dee dhururiya iyo tii cascasayd ba ahayd. tan imika la hayaa waa waraaqaba. marka waraaqahan aynu hayno ma lacagtaa lagu qiimaynaya mise dahabkaa lagu qiimaynaya? farqi weyn baa udhexeeya. haddii la yidhaahdo lacagtaa lagu qiimaynaya silfarta ah ee cadcad oo dee imikaba adduunyada lagu hayo, habeen walbana qiimaheeda la sheego, wuxuu noqonayaa nisaabka sekadu $600 ama uu yaraan adugu $550 meelaha ayuu nisaabka sekada lacagtu ka bilaabmaya. haddii la yidhaahdo waxaa lagu qiimeynayaa dahabka, markaana waxaa laga yaabaa dee konton aan idhaahno 85 garam intay noqonayaan ee ka dhexa ah, waxay noqon karaan lacag $4,000 meelahaas. farqigaasaa udhexeeya. idan alaxwad walaxsan lilmasaakiin, masaakiinta sida u fiican ee axwadkaahi waxa weeye in lacag lagu qiimeeyo waraaqaheenan si uu qofkiina dee u xalaal miirto, oo dee saa farqigaasaa udhexeeya. marka ka yar ee gaaban in lagu qiimeeyo, taa macnaheedu markaa waxa weeye dad badan oo mushahar qaadanaya waxoodii haddii saa loo qiimeeyo dee wuxuu noqonayaa sekagal. see loo qiimeynayaabay markaa su-aashii noqotay. culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa lagu qiimeynayaa dee in sanadkii la sugo 12 bilood wixii uga soo biira ayuunbaa la isugu geynayaa, halkaasuu ka sakeynayaa wixii uga soo hadho, wuxuu cunay mooyaane wixii 12 bilood uga soo hadho sakeynayaa. qayb ka mida waxay leeyihiin wuxuu la mid yahay beertii la goosanaya oo kale, oo qolyaha mucaasiriinta qayb ka mida. ilaahayna wuxuu uhi wa-aatuu xaqahu yowma xasaadi, maalinkaa beerta goosanaysaa ka bixiya xaqiisa. markaa dadkii mushaharkaa badan qaadanayay maalinka ay bisha qaataanu beertii oo goostoo kale ha ka dhigoo qadarkii sekada ku beegna ha bixiyo. labadaa qowl baa jira oo kaa dambe masaakiinta uu u fiican yahay. kollaybana shaxaadku uu iska badan yahay, iska bixiyo u dhiibo sekaba u niyood, warkiisuba ha iska soo ururo. shayga loo yaqaano mustaqalaadka ama waxyaabaha asadka ah ee aan isagu sida tijaaradda loo rogrogaynin, doonyaha, maraakiibta, diyaaradaha, waxaan mishiinadan lagu shaqeeyo, waxa noocaasoo kale ah, isaga waxa la 3 qowl baa jira. laakiin qowlka raajixa waxa weeye wixii ay soo saareen in sanadkii la isu geeyo, dakhligii ka soo baxay waxyaabaha ama kiradii ka ururtay ayaa la isu geynayaa. hadduu sekoobo oo sekagal u noqdo waa laga bixin doonaa. haddii la masruufsado waxba ka soo hadhina dhib ma jiro.
agoonka xoolihiisu ma sakoobayaan mise ma sakoobayaan sida raajixa waxa weeye inay sakoobayaan waayo xadiidka saxiixa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqatun tu'khadu min aghniyaahim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim aw ilaa fuqaraa'ihim waa sadaqo laga qaadayo sekadu waxa weeye seke laga qaadayo ama sadaqo laga qaadayo maalka aghniyada iyo maalqabeenka oo fuqarada lagu celinayo idan marka halkaasuu soo gelayaa yatiimkii ama kii waalaaba wuxuu soo gelayaa inuu qani yahay mar hadduu qani yahay sekadii waa laga qaadaya oo waxaa la siinayaa dadka kale ee baahan haddii qofaad wax ku leedahay waxna u hayso ood ka soo saari weydo waxaaga waad kala hadhi kartaa balaayo ka weyn haddaanay ka dhacayn hadduu baasba ku marinayo dee maxaad samayn laabudda min almuwaasana bayna almasaalixi waalmafaasid mar walba waxaa laga maarmaana xagga sharcigeenna caqliyadda fiicanna ay la jaan qaadaysa in tallaabadaad qaadaysa aada eegto dhibka iyo dheefta ku jira la yskama socdo nooc waaliya bay sheegaysaa qofku hadduu go-aamo un iska qaato ama iska tasarufo un caqliyad fiican iyo cilmi fiican toona maaha marka tallaabo walba uu qofku qaadayo talow maslaxadi maxaa ku jira maxaa dhibaato ka iman karaa keebaa door roon fiqa almuwaasanaat wax la ydhaha baa jira shareecada waad ka goosan kartaa haa fuqahadu way sheegaan laakiin waa inaan dhib iyo fitno iyo balaaya ka weynin maslaxadaadaa mafsado ka weyni waa inaanay ka imanayn wadiicada qofka aad ammaano u haysay ee aada weyday dee wad yaboohin baadi doon canaawiin badan iyo siyaabo loo gartaabay soomaalidu leedoo reer hebel u weyn yahaye reer hebelkiisii iyo qoladu ahaa iyo ardaayadoodii iyo gobolladoodii dabagal haddaad ka quusato baadi baa loo tixgelin inaad iska cuntaana way bannaantay inaad u sadaqaysaana way bannaantay wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat shaykh su-aasha ku xigta saa'ilkani waxa uu leeyahay ninku haddii uu xaas leeyahay xaas labaadna uu damco inta uu sheekada iyo hasaawaha ku jirana gabadhan dambe ay weydiisay ku tidhahda xaas ma leedahay isna uu ku yidhaahda may xaaskiisii hore dafiraaddaa uu dafiray ma kaga furmaysaa waa su-aasha hore su-aasha ku xigta waxa uu leeyahay saa'ilkani gabadh ayaa la furay muddo yar kadib nin sheekha ayaa gabadhii meheriyey markii la qabsaday ee la yidhi gabadhii maxaad u meherisay ee aad markaa wuxuu yihi waa meherku meelgaadh ah oo waa sida lex tebisa oo ilikusooh loo xidhay buu yidhi marka arrintaa maxay diintu ka qabtaa su-aasha saddexaad waxaa soo qoray wiil dhallinyaro ah wuxuu yihi waxaan ahay wiil dhallinyaro ah oo jaamacadaha dalka wax ku bartay aqoon sarena markaa ka gaadhay shahaadooyinkaygii waxaygii aan sitay baan doonayay inaan ku shaqo tago meel kastoo aan tagana waxa igu xidhan abtirisiimo mar kastana waxa la i weydiiyaa cid ku garanaysa inaan markaa soo kaxaysto mar kastoo aan tartan galana cid kale oo markaa dabada laga riixaya ayuunbaa shaqadii la siiyaa marka dadka sidaasoo kale shaqadii u bixinaya maxaad kula talin lahayd su-aasha ugu dambaysa qaybtaas waxa uu leeyahay saa'ilkani qof ayaa ii shaqeeya waxaanan kula heshiiyey muddo 1 sano ah shaqadiina waxay ku soo dhammaatay muddo 8 bilood ah marka qofkaasi miyuu igu leeyahay sanadka intii ka hadhay mushaharkiisii bismillaah marka hore horta beeni run ma noqoto waa beenuun qofkaa ku yidhi miyaad xaas leedahay inaad been u sheegta waa xaaraan inaad run sheegto weeye soomaalidu dumarka markay soo guursanayaan marar badan baa dad ka midi dadkao dhan maaha waxay ka duuli jireen siday usoo xerigelin jireen usoo xerigelin lahaayeen gabadha ama ay usoo kaxayn lahaayeen dabeetana nin baa gabadh buu guursanayo been badan buu u sheegay saasaan ahay xoolaan leeyahay inay hebel baa leeyahay kana markii gurigii uu keenay ayay tidhi waar wixii aad sheegaysa mee sodigan caydh ah ee kan ahayn wixiiba ahayn suuri beenina waa tii xaggii taalay runina waa ta halkan marka khiyaamada noocaasa looma baahna dadka muslimiinta ahi islaamowna run sheeg islaamowna uga qaado weeye runtu waa kama rays waa laga maarmaan haddiise ay sidaaba u dhacdo sidaa yidhaahdo ninkaa isaga ah ereygaasi waxaa loo tixgelin doonaa inaanu sariix ahayna kinaayo yahay markaa kol haddaanu furiin uga jeedin waxba furmi mayso haddii ay odhan lahayd gabadhii miyaad furtay ayaa ay noqon lahayd markaa waxaynu u tixgelin doonaa inuu kinaayo yahay haddaan u niyoonin furiin inaanay ka furmin baynu qaadan doonaa insha allah qadiyadda su-aasha kale ee ah
ninbaa gabadh meheriyey meher mu'aqata meherka mu'aqadka ah ama wakhtiyaysan waxaa loo yaqaanaa nikaaxulmutca nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu xaaraantinimeeyey nikaaxa loo yaqaano nikaaxulmutca oo dameeraha maalintii uu xaaraantinimeeyey buu guurkaa wakhtiga lana xaaraantinimeeyey nikaaxa shuruudihiisay ka mid tahay loo xidhay 60ka ah caqadka caqdu zawaaj in aanu mu'aqad ahayn tacliiq iyo ta'qiid labadaba inuu ka maran yahay waa caqad muhiima mu'abada oon wakhti lagu xidhin haddii wakhti lagu xidhana ma ansaxayo wuu burayba wax jiraba ma aha waana xaraam weeye dadka muslimiinta ee sunnigiina ma qabaana shiicadaa qaba waana qowl baatila su-aasha kale ee sheegaysa camalka aad raadsataba in waasida lagugu xidhayo waasida iyo cid soo kaxayso marka hore waxa wanaagsan qofka iimaankiisa iyo aqoontiisa in lagu shaqo geliyo taasi aad u muhiima qabyaaladana in laga yareeyo la dayn maayo nin baa wuxuu qabyaalada iska daaya haddaydaan iska dayna yaraysta marka kolle dayn mayna in la yareeyo dee dadka la isku dhex daro xuquuq bay dadku isku leeyihin qofkan had iyo jeer shaqada haysta dadka uu u shaqaynayo ayuunbaa wax ka soo gelayaan markaa shaqaaleyna in laga wada qaato midh muhiima weeyo aada u qiimo badan dadkana aqoon iyo ammaano lagu xulo waa laga yaabaa haddii aad taa weydaarato oo reernimo aad ku xulato inay cidhibahaba ku gooyaan kuwa ay isku reerka tihiin oo lagugu cuqubeeyo markase waasidada ama aan idhaahna garashada arrintu ayd mararka qaarkood bay fiicanta oo muhiim tahay oo qofkani hadduu wax khiyaameeyo yaa loo raacaya khalfiyadiisii hore iyo baagaroonkiisii hore yaa garanaya si ammaanadiisa iyo diintiisa loo ogaado taasoo kale wax meesha ku jira weeye haddii qofkii aqoontii iyo shahaadadii qura laguma howlgelaya waxaa la eegayaa qofkan ammaanadiisa ammaanadiina waa in taskiya timaado xagga shareecadeenna wax jira wax taskiye la idhaa markhaatiyadoo kale waa la taskiyeeya shareecadu waa midh muhiim oo la ogol yahay markuu qofkani markhaati noqonayo yaa ku yaqaana in looga qaateen aad tahay iyo in kale marka hadday taskiyadaa tahay dhib male su-aasha kale qofka kuu shaqaynayay ee heshiiskuu sanad ahaa haddii heshiiskii sanad ha ahaada laakiin shaqadiiba dhammaatay sanad ka hor oo 8 bilood ku soo dhammaatay wuxuu leeyahay 8 bilood u shaqaysay waxaanu shaqaysan inuu weydiiyo walaalkii ma aha bima ta'khudhu maala akhiik walaalka xoolihiisa maxaad ku qaadanaysa waxaanad qabsanin ama aanad shaqaysanin shaqaalaan ahaa kuma qaadanaysid taasoo kale waxaa lagu qaadan karaa wixii مثل caqaaraadka oo kale ama guryaha oo kale haddii sanad la kala kiraysto oo wakhtigii ka hor qofkii isaga ahaayee maxaanku idhahdaa kiraystay oo hadalkeena ama idhaa waan ka baxayaa kii hantiga lahaa wuxuu leeyahy mee sanadka adigu haddaad doonaysa kirayso heshiiskaa saasuu ku soconaya haa oo manfacadii baa dee weli taagan laakiin kan mar hadduu camalkii dhammaaday waxaanu qabanin iyo waxaan meesha u ooltoona waxba kuma doonayo wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat sheikh saa-ilkani waxa uu leeyahay dadka qaar ayaa isaga oo heeso iyo macaasi iyo waxyaabo la mida ku dhex jira marka aada la hadasho waxay ka odhanayaan saaca wa saaca iyagoo daliishanaya xadiis kelmaddaa saaca wa saaca ay ku jirto markaa daliishadkoodaasi sax ma noqonayaa su-aasha ku xigtaa inan ayaa soo qortay waxay leedahay fadiilat sheikh dahab ayaan meel ka iibsaday lacagtii aan ku iibsanayay maan wada haysanin dabeedna waxaan ku uhi lacagtii iyo dahabkiiba iisii hay oo hayga iibinin ilaa aan lacagta soo dhammaystirayo markii aan lacagtii usoo dhammaystirayna dahabkii iyo ayaan qaatay marka halkaa wax ribo ahi miyay soo gelayaan su-aasha ku xigtaa gabadh hooye ayaa soo qortay waxay leedahay biyo ayaa xaafadayada ku jiray biyihii baa ninkii marka xaafadda mas-uulka ka ahaa uu ka jaray kadibna lacagtii ganaaxa ahayd waanu iska bixinay waxaana uu naga dalbaday ilaa isaga lacag la siiyey inaanu biyaha noo soo daynaynin xaafaddiina waxay isla garatay inaanu lacag isku dardarno aniguna waan diiday markaa ma bannaan tahay in markaa lacagta aan bixiyo ninkaa lagu laaluushayo su-aasha ku xigtaa wiil dhallinyaro ah baa soo qoray waxauu leeyahay fadiilata sheikh maktabada caam ah oo dadku ay wada leeyihiin baanu xaafad ka furnay maktabadda kutubteeda iyo lacagteeda waxa bixiyey dadkii xaafadda deganaa guddi ayaana loo sameeyey muddo kadib guddidii shaqadii markaa way gabtay markaa ma noo bannaan tahay hal qof oo ka mida dadkii maktabadda aasaasay inaanu maktabadiioo isku dhammaystiran iyo waqafkii oo dhammaystiran aanu ku wada wareejinno su-aasha ugu dambaysa su-aalaheenna maanta
سائلكن wuxuu leeyahay fadiilada sheekh dukaan ayaan haystaa haddii naqad wax laygaga iibsanayo waxaan siiyaa $10 tusaale ahaan haddii qofku iga amaahanayo $12 ayaan siiyaa marka ma ii bannaan tahay haddii qofka aanu ku heshiino oo heshiiska uu ila qaato inaan sidaa lacagta uga qaataa بسم الله النبي عليه الصلاة والسلام ويلي ساعة وساعة لكن ساعة وساعة معها ساعة في الحرام وساعة في الحلال معها وحويان ساعة في حق ربك وفي حق نفسك وفي حق العمل وفي حق الضيف سجى النبي وشجع عليه الصلاة والسلام نفترض حق بك كل هذا إشاد حق بك كل هذا أهلك حق بك كل هذا ضيفك حق بك كل هذا حق إلهي بقصيه الرأي فأعطي كل ذي حق حقه ترتيب تساسا الله وضيع لكن وقلت ومفهوم قلاعا إنه قفك أفهمه معصيه إن مرنا بس عاد لوسي وتدعى رمضان بسوسو ما ينتدكي مركا عيد قاعدة قمر لفرينيا والله تومنيا والله شاسيا بار الله عمرنيا أنتي هرم بالدمينيا وجهلية كمتر marka saaca wa saaca saacadna mubaaxa iyo wixii xalaal baad wadan kartaa shaqadaada wadan kartaa martii ilaahay baad wadi kartaa sida barnaamijka loo qaybinayo in buu ka hadlaya xaaraanta looma dariishan karo sax weeye dahabkii haddii aad calaamadsato lacagtiina aad ku soo ururiso qofka iibkuna dhaca marka dambe aad ka qaadanayso iibku waa inaanu dhicinuun adigoo aan lacagtii u keenin inaad dahabkii aanad ka amahanin oo aanad goynin iibka waqtigaad iibka goynaysaa waa mar lacagtii aad u soo dhammaysay dahablaha dahabkii aad calmateed calaamadsatayna aad qaadanayso dahab iyo lacag waa la isku iibin karaa waana la kala badin karaa laakiin waa inaan la kala amahanin intaasaynu ku soo koobi karnaa adiga laftigaagaa sheegay su-aasha kale in ninka farsamo yaqaanka ee biyaha soo xidhaya uu laaluush doonayaad sheegtay laaluush miyaan bixiyaa mise ma bixiyo un weeye su-aasha mayaha bixin laaluushku waa xaaraan waa la nacdalay alraa'ish waalmurtashi waraashi kii qaadanaya kii bixinaya dilaalkoodiiba intubay wada nacdalayn duubiyada waxaa sidaa u malaasay dadka waxaa laaluushka la ydhaa ayaa dan caam iyo dan khaasaba baabiiyey markaa haddii xataa aada xoolahaaga soo dhacsanayso oo culimmada qaarkood qiil u sameeyaan mafsadada ka dhalanaysa daraaddeed in la bixiyo maaha si caamuu xadiidku u diiday laaluushka kii qaadanaya kii bixinayayba mushkiladda soomaalida haysata waa dad deg badan oo dabada laga riixay oo wixii oo laga yaabo inuu maalmo kadib u dhammaan lahaa ayuu odhanayaa si uu dhaqso u dhammeeyo dhaqso si uu kugu dhammeeyo ka gaadhsii iyo haddaanad waxba siin armu sidaa yeelaa arrinkiisu waa kaad wakhti ku qaado dulmiga waxa la yidhaahdo ha dugsanin maktabadda ma garanayo waxa qofka loogu diidayo haddii dadku ay xaafaddii samaysatay ay intifaacsanayaan dee qofka ugu mudanee mas-uulka aan kutubta iska guranayn ama dadka kala siinaynin waa loo dhiiban karaa oo waa la odhan karaa inta guddi dambe loo samaynayo hebelow noo sii hay su-aasha u dambaysay aziyaada muqaabil alajal haddaad kaash ku iibinaysana inaad qadar siiso cayiman haddaad amaaha ku iibinaysana wax gaara way bannaantay laakiin hal shardi baa ku xidhan laabudda an laa yakuuna hunaak baycun fii baycatayn kelmadda waa inaanay ka muuqan laba iib oo isku dhex jira oo haddaad tidhaahdo shaygan qalinkan haddaad igaga iibsanaysa kaashna waxaan kaa siinayaa $1 haddaad amaaha igaga iibsanaysana $2 taasi ma ansaxayso waa iib keliyoo laba iib ku dhex jiraan ka daa markaad ogaato qofkan inuu amaah doonayo waxaad tidhaa $2 baan kaa siinayaa markaad ogaato inuu kaash doonayana waxaad tidhaa $1 baan kaa siinayaa caqad keliya oo go-an idan markaa waxay bannaan tahay ziyaadatu thaman muqaabil alajal waxay bannaan tahay shayga loo yaqaano markaan labadaa caqad isku dhex jirin adiga ikhtiyaar kale lacagta haddaad kordhinaysiiyo haddii kale qofkan iibsanayaana isaga ikhtiyaar kale wixii mukhaarijkiisaa buu eegaya markaa ama kordhi ama yareeyo laakiin kelmaddaa wada socota haddiidaa ka dah waa bayc keliya oo laba bayc ku dhex jiraan taana nabigaa diiday calayhi salaatu wasalaam wahada ma aquluhu waastaqfiru allah fima akhtaat asalaamu calaykum waraxmat ullahi